السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وناكسن أصحابي مالك صوت نقدا ونسان كسودو هذا برنامج كان اللباد مانتا ومال النمو جمعة مركلة وحند الله هاي جمعة مبارك تاريخ دوا سديد ماي سنة كلا بكوني لحية لباتن هذا بقى ضبط برنامج كان يدي كوسو قد بين دونا أو برنامج كان اللباد وحكم الضغط دونا إيراني يوم ريكن كأو جوردو مركلة نكتس كساري وعليس حالي نوادو غيدين ما ترى ولا اسكو قاضي ترى وحبت توجنتي ميا قركا u saaran inay jabto maxaa keenay maanta inay markale haddana iskaraacaan tafaasiisha wararkaas ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa waxa soo kale barnaamijkan idinku haynaa Mareykanka wali waxay sugayaan jawaabta Iiraan ay ka bixinayso hindisaha wada hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo sheegay in maanta Iiraan laga sugayo inay soo gudbiso qorshaheeda halka Iiraan ay sheegtay in wali arinta ay ka baaraan dagayso warka xiisaha leh waxaan idinku soo gudbinayaa maanta barnaamijka Masar oo ciidamo geysay iyo diyaarado dagaal dalka Imaaraadka Carabta Masar miyay ku biirtay dagaalka looga soo horjeedo Iiraan haddaba wararkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa balse waxaan naga xusuusaa maanta waxay ahayd maalin jimca barnaamijkeena ama qisadii aan ugu talagalnay maanta dadka jecel qisooyinka inaynu ku soo gudbinay channelkeena kale ee qisooyinka nadaara laba halkaas ayay dadka iyaguna qisada jecel ka heli doonaan waqti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa jimco wanaagsan taariikhdu waa 8 May 2026 wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa waxaanu ku bilaabaynaa goordhow waxaa haddana joogsaday dagaal dhagaha la iska garaacay oo in yar socday kaasoo ka dhacay marin biyoodka Hormuz بيسلها وعلى عليس لما كان إيرانيين يا مريكا حالا مدة وجدنا على سكولة هذانا هوسا على سكولة جنتارو يسواريق يوحول با هذا بتي حالا وكشة كني برنامج كي كوبات أيانو سوي نوقفافا هني تنحدر علي ما يكون بلابت يا قردرن يا قردر يا سويدينا ماشا دول بوحولي كان كلاسا أسا وحب الله بي أنا مركاسان كجوابي ولي هذا مركا وررك حق وقال لماذا الهلي أو ورباهين تتبيني سوحي ليين لابا مركب أو كوا شدال كقادا أو إيران ليضح أو شدال سو جيي ماشي آذين شدال كي انت جيي سو لابتي oo dekadahoodii u socda ayay Mareykanku waxay yiraahdeen joogsada maxaa joogsadeenaa gurigeenaba u soconaay joogsada maxay xayiraada saara xayiraada meesha rabtiin la aadeen waxaan joogsadeen bale Mareykankii dhiisa shanta la soo agmaray markaas Mareykanku waxay yiraahdeen waxaynu ku ridnay labada markab laba gantaala ku ridnay waliba meelaha halisa maana uga dhufare waa dhaawacneen waa ugu talagalnay jugta ka galin maadaama cunaqabatayntii ay jibiyeen labadii markab ma lagu riday gantaalihii way hadleen sheekadaas dhacday waay nimankaana wuxuu waaba cabaysan yihiin Iiraaniyiinta ciidankooda ilaalada kacaanka wuxuu waaba diyaarsan yihiin gantaalihii iyo waliba maxaato droniskii hal maray soo haadeen maraakiibtii weerartay kuwii Iiraan intii aysan kala wareegin aan nagta laga saarayeen waa isqabsatay xabadii ma ujeedaa kuwa kale kuwaas waardiye ka ahaa oo Mareykanku leeyahay iyo maraakiibtii doomihii yaryaraa ee kaneecada badda aan u bixiyay ee Iiraan ayahay jugta iska geliyeen gantaalka wiifaya waxa socda rasaasta dhacaysa labadii markab ee Iiraan iyagoo dhaawacanay dhanka dekadoodii aadeen markii loo soo gurbaday
kuwii Ameerikaanka ee wax weerarayna dibay isaga laabteen laakiin beesha maxaa yaala mushkilad weyn meesha marka ka jirta leey mushkiladaas marka waxa waaye sheeko cajiiba waa fiiriya 1600 oo markaba ku go'doonsan meesha rasaas haddii la isku rido iyo madfac iyo hoos la isugu dhigo derbi lagu dhunto ma badda ku yaala markabkaana ka soo dusay ka kale ka dhaxbaxaysa baraakiibtii oo dhan maartay dhibaato ku dhacda leey marka xaalku aad uu marka halis u yahay haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay laga qoray telefishinka Al Jazeera goordhow wuxuu leeyahay ciidamada Mareykanka iyaga ayaa marka hore bilaabay oo duqeeyay 2 markab oo kuwa shidaalka qaada oo faaruq ahaa kuwaas oo ku soo laabanayay Iran shabakada la yiraahdo Fox News ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo soo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan ayaa waxay sheegeen in maanta ay Mareykanku iyagu weerar ku qaadeen 2 markab oo faaruq taagayay oo ka soo laabtay shidaal ay geeyeen kuna socday dekadaha Iran oo Iran ay lahayd kadib markii la sheegay inay jabiyeen cunaqabatayntii Mareykanka oo jeeda Mareykanka isaga qiranaya wuxuu leeyahay annaga jugta bilawn labadaas markab waxay jabiyeen xayiraadii dekada waxay aadeen Iran okay Iran marka iyadu sheekadan maxay ka tiri haddaba Al Jazeera waxay leedahay kala leedahay wakaalada wararka ee Tasniim waxay sheegtay in rasaas culus la isdhaafsaday oo waliba xadidan Iran iyo cadawga waxaana ay rasaasaas ka dhacday marinbiyoodka Hormuz haddaba waxay leeyihiin rasaas kooban oo aad u culus la isdhaafsaday cadawga iyo Iran oo marinka Hormuz ka dhacday waxaana la sheegay inay rasaastaas socotay 2 saacadood ku dhawaad in dagaalkaas uu socday uu ka socday marinbiyoodka Hormuz موجودة كدواد لبا ساعدود ميلهاس واديga inta dabka la isgeliye waa saacadii meelahaas inta kalena xogaa raacda reeb iyo waxba jiray dhag waa joognaa amal waxaas laba saacadood ku dhawaada meesha jugtu ka socotay marka sheekadii maanta dhacday marka iyaduna sidaas ay u dhacdaa la leeyahay tii xalayna de waa tan ka sheekeena wixii dhacay barnaamijkii koobaad dadka aan daawan iyaguna halkaas ay ka fiirsan doonaan waayahay waxaa noo soo socota sheeko cajiiba oo ku saabsan Masar oo ciidan iyo diyaarado dagaal geysay Imaaraadka difaacayna ilay waxaan ka difaacaynaa Iran sheekadaas waa sheeko aad xasaasi u ah laakiin waxaan ka hormarinaynaa wada hadalladii ayaa hadda waxaa la leeyahay waxaa laga warsugayaa Iran macnaha Mareykankii waxay sugayaan Iran inay dhahaan confirm okay way waa heshiiska waa la saxiixayaa Iran marka la sugayaa marka ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rubio la leeyahay ayaa wuxuu yiri maanta sugaynaa Iran inay noo keento arinta oo macnaha waxa aan ka sugayno heshiiskan inay nala qaadato iyo in kale maalmahan oo dhan Iran la sugay Iran waxa ma ogaadiyay wali daraasada ku haynaa adika su'aal daarabtaan hada degdegsantiin dagaal ma u socotina kale waa nagta iska saareynaa hadii kale suga baasho daraasad weyn oo baantaay waxa u baantaa khubare u baantaay ayatullah iyo laftirkiisa fakarkiisa loo baahan marka nimankii marka saas lagu jiraa marka dhanka kale marka wasaaradda arrimaha dibadda Iran waxay leedahay annagu arikan waa ka fiirsanayna wali laakiin waa soo gudbin doonaa marka sheekadii wada hadalka iyaduna wali waa nusan tahay wali Iran dhankeeda wax laga sugayaa marka halkaas sheekadu maraysa haddaba warka xiisaale ee soo baxay waxa leeyahay waxay ogaatay warbaahinta carabtu in Masar ay geesay ciidan hub gantaalaha difaaca iyo diyaarado dagaal waliba Imaaraadka geesay dadkii masaarida marka waxay leeyihiin sharciga ciidankeena uu ku tagay Imaaraadka maxaa adduunka marka ciidan qaadaysid hub qaadaysid waa difaaca leedahay waa inay wax idinka dhaxeeyaan gaashaanbuur leeyahay NATO oo kale ma ku wadi jirtaan ma iskaashi khaliijka iyo Masar ah oo illa isdifaaco ah oo official miya qoran dad yowgooda og yihiin dadkooda og yihiin may
maxaa marka ciidanka loo geeyey waxaa la yidhi ninka siisi ahaa ayaa imaaraadku afgarteen imaaraadku way afgarteen macnaha waxoogaa wixiisa boorsadiisa loo tuuray ciidankan masaaridan meeshu iska keenay hadda marka waxa waaye marka hore qarsoodiye ahayde hadda bug ay soo tiri baashi warbaahintii oo dhanaa ka hadlaysa maanta siisi meeshuu tegay ciidan masaariyaa jooga diyaaradaha jooga iiraan marka maxay tiri annaga masarey adiga dagaalku gulama jirno kowdhe laakiin haddii aa meeshaa imaatid jugtaa lagaa gelinaa masar ciidan ay keeneen iyo diyaaraday masar keenta maxay iiraan ka qaadeen macallinka weynaa wax kasta inta geeyey oo hub adduunka ugu qaalisanaa wax laga qaadi waayo masar maxay marka meesha ka cunaysaa imaaraadkaana lacag looga qaadanaa bas masaariyaa kula joogtay masar waa xoogaa maaragtay waa saas waa ile marka sheekadii waaliya noqotay hadda masar waxay iyaduna soo gashay liistiga iiraan cadowgeeday soo galaysaa imaaraadka fogsaa saarnaa wuxuu soo geliyey masar uu soo dhexgeliyey sheekadii masar maxay u nasaneen horta qaliijkaba jugtaa laga gelinaya masar laftirkeeda gantaalka marka iiraan magaara masar iiraan gantaalkeeda hadduusan gaarin xataa xuutigaa dhagaha ka garaaci kara badda cas meesha suudaan dusheeda iyo xuutigu gantaalihi ay soo ridaan israa'iilay garaacaan xataa dronis iyo gantaalo u socday dagaaladii hore oo lagu duqayn lahaa israa'iil ayaa waxay ku dhici jireen dhul ay leedahay masaarida marka maxaa leeyahay aagaas horta waa xuutiyaa nagta ka saari kara masar dhanka kalena iiraan laftirkeedaa garaaci karta iiraan israa'iilba way garaacaysaa gaza meel ku dhoway garaacaysa iiraan gaza iyo masarna deris waayo marka meel aysan gantaaleedu gaari karin gobolka bariga dhexe iiraan ma jirtaa leh marka sheekadanu waxay noqotay sheeko waali ah marka haddaan hadda bahashan lugaha la qabanin meel kastee ku fidaysaa waa cudurka kansarka oo kale uu yidhi nin la wareysanayo dagaalkan iiraan wuxuu yidhi waa kansar oo kale meeshuu hadda jooga haddaan lala jarin oon lagu joojinin jirkao dhan oo ku faafa uu yidhi gobolka dhanuu ku faafi doonaa uu yidhi dagaalkan turkiga waa gaari doonaa masaruu gaari doonaa waa la iskala tegi doonaa wadamadan yurub ee kusoo dhow bariga dhexe giriiga iyo dhulkanuu gaari doonaa qubrus iyo waxaanoo dhan waa gaari doonaa marka sheekadii hadda tabtiga ku socotaa haddaba marka aan idintusoo wararkii ugu dambeeyey wargeyska la yidhaahdo alqudus ayaa wuxuu leeyahay ciidamo masaari ah ayaa jooga imaaraadka laakiin su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay sharciyadda loogu diray ciidankan masar loogu diray haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay wargeyska alqudus wuxuu helay xogo muhiima oo laga helay qaahira kuwaasoo sheegaya in booqashadii madaxweynaha masaarida cabdifataax asiisi uu ku tegay abudabay ay markaasi la xiriirtay ciidamo masaari ah oo la geeyey halkaas kuna sugan saldhig military oo imaaraadku uu leeyahay waxaana la sheegay wasaaradda difaaca ee imaaraadku inay markaa halkaa wada tageen sheekh maxamed bin zaayid madaxweynaha imaaraadka iyo madaxweynaha masar siisi booqasho inay ugu tageen ciidankaas oo halkaa ku haysta hub casriya iyo diyaarado dagaal ma ujeedaa marka sheekadii bariga dhexe allow sahlay marisaa wararkaas ayaa iyaguna soo kordhay haddaba qadar xayeysiisa kadib wixii akhbaaraada ee soo dhacay inta aanu barnaamijka ku jirnay ayaan idiin soo gudbin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo nagala socotaan kusoo dhawaada qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenna labaad maanta aan idiin soo gudbanayno maanta waa maalinimo jimca qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenu marayna alaaba qaybtan waxaynu kusoo qaadanaa wixii akhbaaraada ee soo dhacay inta aanu barnaamijka ku jirnay haddaba goordhow waxaa taqriir ama warbixin soo saartay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan waxay tiri 2 maarso markii dagaalka uu bilowday ilaa hadda inta qof ay shahiiday ee markaa reer lubnaan ah oo israa'iil weeraradeeda ku dhintay xisaabtoodii maanta inta ay marayso
haddaba waxaa la sheegay 2759 muwaadiniinta lubnaana inay shahiideen oo ay duqaymahaas iyo wixii ay samaysay israa'iil ay ku dhinteen kuma jirto wixii ka horreeyay iyo xasan nasrullah markii la dilay iyo waxaas kuma jiraan waa tan iyo dagaalkan iiraan iyo markii xisbullaahi ay gashay kadib wixii dhintay 2759 lubnaaniyiin ah ayaa dhimatay ayaa la leeyahay haddaba sidoo kale wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan israa'iil isla maanta inay qaaday weeraro cusub xisbullaahina ay ku jawaabtay weeraro daroonsa iyaduna ay ku qaaday goobaha ay joogaan israa'iiliyiinta haddaba israa'iil iyo xisbullah halkaas iyaguna jugta isku hayaan dhanka kale maraykanku wuxuu maaweelinayaa dowladda lubnaan wuxuu leeyahay wadahadala ladiin qaban doonaa 14 bishii 15 bisha idinka iyo israa'iil mar kale isku imaan doontaan waxay leeyihiin maxaa isku imaanayna xabad joojintii hore aaw israa'iil waatan waxay rabtay jugta ka gelinaysay maxaa xabad joojina marka sheekadaasu iyaduna halkaasay ka qasantaa marka adduunkii oo dhan wuxuu iska noqday adduun allow sahal ah meel kasta waa la isgaraacaya barnaamijkaygii labaad waa naga intaa balse waxaan idin xusuusinayaa maanta waxay ahayd jimco inaan soo gelinay janalkeena kale ee qisooyinka nadaara 2 qisadii toddobaadkan oo iyaduna aad u xiiso badan laagareey oo sheergareey barnaamijka asxaabay meel kastoo aad joogtaan inta aan mar kale kulmayno